أحمد كسر دور بهنت عرب الصوماليات الواحد قربحنا نقصيسا مانتي واحد لوجوسه ورتشي ويكهر علمه أوه واحد جوادات وهذا شيء وقت قبل أن أجلسي مركب الواحد قربحنا نقصيسا سيد لوجوسه ورتشي حاجات وحمرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عبد حكيم وما تنتهي هذه يو bahweynta Somali National TV hawshan waxay ahayd hawl waqti dheer iyo juhdi badan aan gelinay. Caruurtan waxa hooyadood laga qaatay January 20keedii ayagoo agoona oo kaligeed ay la rafaadaysay 6 caruur ay ahaayeen. marka tan iyo maalinkii la qaatay ilaa hadda dadaal badan baan muujinay, maxkamado badan baan tagnay, dagaal badan baan galnay. ilaahay mahadiis iyo mahad aan u jeedinayo ummadda Soomaaliyeed oo kulligood u istaagay, ha ahaadaan culamaa u diin, ha ahaadaan hooyooyin, ha ahaadaan aabbayaal. dad badan baa iska xil saaray inay hawshaan wax ka qabtaan. dad badan oo macruufana oo ugu jiraan sida Hiiba Nuuro iyo Adarkaahin. media laftiina adinka laftiina waa istaagteen. marka waxay nagu qaadatay January 20keedii ilaa last week May 1st in aan caruurta lagu soo wareejiyo. waxyaabo badan oo ciidiyahay ku dagaalameen waa noo diideen. waxay isku dayeen inay carqalado badan hor dhigaan, laakiin markii dambe waxaan u tiigsanay qodob DHS-ku ay soo saartay oo ahaa kinshipka. ilmuhu haddii uu leeyahay dad qaraabo ah oo dhaqankooda, diintooda, diet-kooda in lagu wareejiyo dadkaas ehladooda ah. marka uma baahnid foster care license inaad leedahay, waxaa lagu siinayaa emergency license. kii qodobkii baan u isticmaalnay, waxoogaa bay cagajiideen. markii dambe ilaahay waa nooga soo fududeeyey. caruurtii maxkamad baa noo xukuntay oo aniga shakhsiyan igu soo wareejisay. waa gartay xagee marka hawsha inta kala maraysa? hawsha inta kale waxyaabo badan baa dib u dhacay caabuqan dartiis. maxkamado badan baa dib u dhacay. xataa kuwii 3dii maxkamadood oo ugu dambeeyeen soo marnay kulli waxay ahaayeen telefoon iyo video. marka ma garan karo, waa 2 maxkamadood oo iska rab socda. mid waa qadiyadda caruurta iyo mustaqbalkooda, midna waa criminalka iyo gabadha. marka shaqo isku malaha, waa 2 judge iyo 2 lawyer iyo waxay kala leeyihiin. tii caruurta hadda waa aniga la igu soo wareejiyey. walwalka noogu badan taasuu ahaa. marka xoogga waxaan saarnay horta inaan caruurta gacanta ku dhigno, markaas aan u soo jeesano gabadha difaacideeda. taasna maxkamadihii dib bay u dhigayeen. hadda waxaanu qabsanay 2 lawyer oo kale. dagaal ayadana waxaan ku jirnaa. weli lama qabanin maxkamadii sababta lama qaban karo oo caabuqan dartiis. laakiin marka caabuqa laga baxo yaa judgeku uu iclaamin doonaa maalinta gabadha maxkamadda la saaray. waa gartay maxkamadii 19 22 ilaa 23 la qabtay ayaga ma dib u dhacay? maya, waa tii telefoonada lagu qabtay. waa April xataa last week marka caruurta la siinayo telefoon bay ahayd. marka 3 maxkamadood waxaa jiray telefoon ah oo waxay dhahaan status check. waxay fiirinayaan wixii isbedelay. hadda maanta kale maxkamadda waxaan leenahay Monday, mid kale Tuesday 12 bisha mid kale aan leenahay. waxyaabaha laga hadli doona caruurtii ma la wareejiyey, see way xaaladoodu, ma degan tahay. marka status check bay dhahaan. wax maxkamada oo nafle ma aha. waa gartay dadaal badan baa la galay. Soomaali meel kasta ay jirto waa qaylisay. tabar iyo talo iyo tabarucaad intaba ka qayb qaateen. maxaad ummadda Soomaaliyeed u sheegaysaa?
ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa dalkiinii iyo beerihiinii iyo guryihiinii iyo wixiinii qiimaha lahaa dhan waa ka soo cararteen. waxa kaliya oo la timaadeen waa caruurtan ayagiina haddii laydinka dareersado waa ayaan daro. fadlan u dagaalama caruurtiina, waa u dagaalami kartaan. waa aayaha kaliya oo aanu leenahay inaan caruurtaas masaakiinta badbaadino, weliba inaanan ku halaynin qoys iyo qof single mother oo iska daala dhacaysay, inaan as a community aan isku xirnaano, iska warhayno. taasaanu ku badbaadi doonaa. haddii kale mujtamacyaal naga soo horreeyey waxaa jira baaba'ay oo systemkuna baabi'iyey. caruur mar hadday gasho foster care iyo adoption 90% waa khasaareen. waxaan ummadda Soomaaliyeed dhihi lahaa sidaa tan oo kale ugu istaagteen qadiyadihiin oo dhan ugu istaaga. ilmihii shan baa gacanta ku dhigtay xabad ka dhiban. gabadhii weyneyd waxay la joogtaa family Soomaali ah oo tan iyo maalinkii la qaatay iyadu nasiib wanaag waxay u heshay qoys Soomaali ah inay u tagto. marka hadda waxay jeclaystay inay la sii joogto qoyskaas, annaguna ma bush karaynin sababta. daawadayaal kaasi wuxuu ahaa Axmed Cirday oo ahaa shaqsiga ilmaha ay qaateen laga qaatay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Grand Rapids. waxaan weydiinaynay bal ilmihii lagu soo wareejiyey iyo sida loogu soo wareejiyey. waxaa barnaamijka la socodsiinayay anigoo ah Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil.